waxaan iyadana ugu baaqayaa dirirta jiidda hore ee gobolka Sool ka aloosantay waan ka xumahay runtii inay arrintaas iyaduna dhacdo waxaan rajaynayay inay dagaaladii intaa ku adkaadaan haddii dadka deegaanka ulajeedadooda ahayd inay deegaanadoodii kala joogaan wixii kale oo dagaal la horiyo waa dagaal runtii aanan garowshiyo lahayn dagaalkaas iyo dirirtaas dadku ku leeanayaan iyadana hala joojiyo hala wada hadlo hala isku dhaganuglaado dad Soomaaliyeed bay nahay degalkan ka guuri mayno wili lama sheegin dagaal siyaasadeed oo xoog lagu xaliyay taariikhda kama dhicin waad maqlaysaan Ukraine iyo Ruushka hadda waxay ogolaadeen Soomaaliya xabad joojin meel xabad ay ku soo idlaatay taariikhda kama dhicin marka waxaan rabnaa dadku inay marka dambe kulle miiska wada hadalka imaan doonaane iyagoo dad badan ka dhiman dadka khilaafka siyaasadeed iyo khilaafka dhuleed iyo khilaafka qabiil baan ka hadlayaa kuwa gardarooday oo shabaabka iyo shayaadiinta iyo daacishta iyagu xal ma leh waxa weeye wadada kaliya u furan waxa weeye wadadii ay qaadeen inay ka soo noqdaan laakiin intay qoriga sidaan waa la dagaalamaya hadday ka soo noqdaan oo bulshadooda u soo noqdaan oo u toobad keenaan ilaahood oo dib u soo noqdaan dee bulshadaas dhaqan celin bay u baahnaan doonaan oo insha Allah in dadka lagu soo dhexeliyo weey laakiin intuu aaminsan yahay inuu qori xalkiisa ku gaarayo ma dhacayso